waxaanu kaga qayb galnay xubno ka kooban 10 xubnood oo ka socda labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. shirkaasi wuxuu ahaa shir aad iyo aad muhiim u ah oo wax fara badan lagaga wada hadlay ayna ka mid ahaayeen waxyaalaha lagaga wada hadlay arrimo xasaasi ah oo ka mid yihiin arrimaha Falastiin iyo buuraha Golan Heights. marka wuxuu ahaa shirkaasi shir aad iyo aad waxtar u ah ugu ah nabadda adduunka iyo iskaashiga iyo ku wada noolaanshada nabad baarlamaanada adduunku ay u soo jeediyeen caalamka guud ahaan. Soomaaliyana qaybteeda ay ka qaadatay. waxaan la kulannay guddoomiyaal gaar ah waa la kulannay oon ka wada hadalnay arrimaha baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaanadii ay ka socdeen. arrintaasina waxay ahayd si fiican ayaan isugu fahamnay. waxaan isleeyahay kolkaasi mustaqbalka kulley arrimo u baahan labada aqal inay si wada jira guddi u sameeyaan guddi wada jira oo saaxiibtinimo oo dalalka carabta iyo baarlamaanka Soomaalida baarlamaanada carabta iyo si gaar ah baarlamaanka dalka Qatar iyo baarlamaanka Soomaalida.